بسم الله الرحمن الرحيم عبد السلام عبد الله جلحو كنميد لو أنا كوافق البيت ujeedo waxaa idin soo wacay idaacadda inaan ku caddeeyo inaan iska casilo xilka uu madaxweyne cabdicasiis maxamed laftagareen uu ii magacaabay oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cirka iyo dhulka gaadiidka cirka iyo dhulka waa iska casilo xilkaas. maxay tahay sababta mudane wasiir sababta maxay tahay maadaama isla maanta waqti kooban ama waqti ka hor lagu magacaabay haddana aad ku dhawaaqday inaad iscajisay? walaalow de meesha waxaa lagu joogaa ma qaybsi waaye awood qaybsi koonfur galbeed awood qaybsiga haddii lagu xadgudbana dee maxaa la dhihi jiray la-aan unbaa dhaanto marka awood qaybsiga haddii lagu xadgudbo marka annaga waa iska casilay jagadaas way inoo qalmi weysay wasiir la-aana ka xignaa annaga ka beel ahaan gaalaha dego koonfur galbeed annaga haddii aan nahay maxaa la dhihi jiray oo ku abtirsado oo dhaqan macalin degaan kana soo jeeda gobolka shabeellada hoose marka xadgudubkaas oo dhowr sheerinka ah hadduu nagu dhaco annagana de wasiir la-aana ka xignaa waa iska casilay xilka saasa iskaga casilay. xubinta lagu magacaabay keliya miyaad kasoo horjeedaa mise waxaad rabtay xubin kale oo midan ka duwan? maya walaalo de saami qaybsiga waa taqaanaa awood qaybsiga waa taqaanaa awood qaybsiga haddii power sharinka oo laga xudgudbo dee way u qalmi weysay dhaqanka siyaasiyiintii waxgaradka meesha ayagana shir degdeg ay ku jiraan ilaa yiraahdo warka kasoo baxo oo shirka jiraa inay qabtaan insha allahu waad maqli doontaan wayna idiinsoo gudbin doonaan ilaahay yiraahdo. mudane xildhibaan waxaa jiray tashiyo badan oo uu madaxweyne laftagareen uu la sameeyey beelaha dega koonfur galbeed dhammaantood 3 gobol ka kooban tan iyo intuusan soo magacaabin wasiirada koonfur galbeed tashigaasi soo kuma jirin beeshiina iyo weliba xilkan inaad qaban doontaan? ballanqaadkii iyo nidaamkii oo koonfur galbeed oo aan madaxweyneheena cabdicasiis maxamed xasan aan ku keenay meeshaan isbedel iyo maxaa la dhihi jiray si xaq maxaa la dhihi jiray iyo xur iyo xalaal in wax lagu qaybshay ahayd tiina waa weynay annaga marka saa daraadeed wasiir ku-xigeen wasiir la-aan aanoo dhaanto saa daraadeed aniga waa iska casilay wararka oo faahfaahsanne beesha uu hogaaminayo ugaaska beesha iyo siyaasiyadiisa saacadaha soo socda insha allah waad maqli doontaa. ma kula qabaan dhammaantood beesha saad ii sheegtay dhaqankiina iyo weliba dhammaan siyaasiyiinta beesha aad kasoo jeedo go-aankan aad qaadatay ma kula qabaan? aad iyo aad beel kamid ah beelaha dego koonfur galbeed gaar ahaan shabeellada hoose xildhibaankooda federaalka laga doorto koonfur galbeed weye wayna wada qabaan go-aan laysla qabo waaye marka insha allahu waxa laysla qabana dhib ma keenaan insha allah ilahay haduu yiraahdo de annaga wasiir ku-xigeen wasiir la-aana ka qaadan insha allah go-aan cad waaye taas insha allah shirka jaraa'idaan ugu bagan doontaan insha allah warkiiba kooban. waad mahadsantahay xildhibaan. aada mahadsantiin.